تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نبي نودقنا عليه الصلاة والسلام وحول أعطيت جوامع الكلم. الله أكبر. وحيلا حيانيga يسيي كلمات كلمة ير وكوبا لكن مرتله. حديث كاس وحان سو قادننا والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حديث كان صحيح. لبا دركني الدين الإسلام أي كنت أجنتها وحقوق الله وحقوق العباد. هذا هذا الحق إلهي بنبوحن وحق بني آذنك وكنت من كاسع الناس. الله أكبر. هذا ترادد حقوق العباد بان إلالين وحق إلهينا وان ضيعي أيضا كاسع عن ميسو. الله أكبر. marka labadaas la doonay diinteena inaan ku joojino xaq ilaahayna ilaali waa tawxiidkii waa iimaankii waa macrifadii waa salaadii waa soonkii waa xajkii xuquuqul cibaadna iska ilaaliyo waa zakadii sadaqadii ihsaankii weeyaan iyo in umadu adinkaaga carabkaaga ka nabad gasho. Allahu akbar. gaalada adduunyada nagula nool laga yaabo xaq bini aadanka inay aad u ilaaliyaan, walakin ilaahay wuxuu yiri waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. waxay adduunyada ihsaan iyo khayr iyo samafal ay soo sameeyeen adduunka iyaga lagu siin, laakiin aakhira waxba ku heli maayaan maadaama xaq ilaahay ay dayaceen. marka xadiiskaas nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ittaqillaha ilaahay ka baq oo ilaahay ka yaab حيثما كنت ماشى دونتبا هنغاتدو هجوجتدي واتبع السيئة الحسنة تمحها. هدي قف وكاد عنها بشر باتو وادقفيساي حريست إلهي وفرنتها كقوسنه حسنات يا خير يا عمل وناكسن كدن بيسي markaasa waliba ilaahay nabigu wuxuu ku leeyahay khayrka aad samaysay ee dambe xumaantii hore ee ka dhacday bay masaxaysaa. innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. lama oran inna sayyi'ati yudhibna al-hasanat. ilaahi waa kariim waa rahiim waa rahmaan adoomihiisa uu jecel yahay. khayr man haddaad samayso khayrkaas uu ku yaala halkaas. dambi haddii aad ka daba samaysidna khayrkii hore kaama saxmi maayo, laakiin gaf hadduu kaa dhaco oo khayr aad ka dambaysiisid gafafka yaryar weeyaan khayrkaa dambe aad samaysay sida salaada iyo weyse qaadashada iyo masjidka loo socdo iyo xalaqaadka cilmiga la fadhiisto iyo masjidka lagu i'tikaafo acmaashaasi waa maxay? waa kafaaraat. gafafkii yaryaraayo dhan bay kaa masaxaysaa. wa khaaliqin naasa bikhuluqin xasan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam bini aadankana dadkana akhlaaqda wanaagsan kula dhaqan. muslimiinta lama dhihin keliya dadka buu nabigu dadka akhlaaqda wanaagsan. gaaladu maanta dad badan baa jiro wadana gaala ku dhex nool, salaadeena ma arkaan, soonkeena ma arkaan, zakadeena dheef kuma leh, xajka ma gali karaan oo maka intaan la gaadhin baa waa ka xadul xaram mamnuuc baa ku qoran inuu nin gaal halkaa u dhaafo. laakiin gaaladu maxay arkayaan? dhaqankeena ay arkayaan, akhlaaqdeena ay arkayaan. ibraahim al-adham allah u naxariistay baa la sheegay inuu nin yahuudiya ayaa u yimiday isagoo ay wata. markaasuu yiri ibraahim al-adham sheekha la yiraahdo ma adiga? markaasuu waa la yiraahdo maxaa jira buu yiri say wuxuu jiraan. wuxuu yiri aygaygan iyo adiga midkee fadli badan buu ku yiri. marka sheekhi uu aamusayo waxaan wada su'aasha nin gaal hadduu labadana weydiin lahaa Mustafa. Allahu akbar. waa dagaal Soomaa. laakiin sheekhaasi wuxuu yiri haddii hadhow toole aakhira markii la joogo ilaahay la hor joojiyo kitaabkayga gacanta midig laga siiyo janno galo maalinka aygaaga ana ka fiican buu kana fadli badan. laakiin maalinta ilaahay kama yeelay haddaan khasaaro kitaabka gacanta bidixan ka qaato naar la igu tuuro aygaaga iga fadli badan buu yiri. inkii wuxuu yiri wallahi ashhadu anna hadhihi akhlaaq al-anbiya alayhim assalam. marka walaalahay waxaan ugu boorinaynaa annaguna nafteeda aan ku boorinaynaa mar walba inaan xuquuq Allah iyo xuquuq al-cibaad labadaba iska ilaalino. hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. salaam.